waxaa isa soo taraya dilka iyo dhaawaca loo geysanayo Soomaalida u tahriibta dalka Sacuudiga. Soomaalidani ayaa dilkan iyo dhaawacan ay kala kulmaan inta aysan gaarin xuduudka Sacuudiga uu la wadaago dalkan Yemen iyo xuduudka Qudus. xuduudka Sacuudiga uu la wadaago dalkan Yemen ayaa waayadan dambe waxa uu noqday khatarta ugu weyn ee soo wajahda dadka tahriibayaasha ah. hadalhaynta ugu weyn maalmahan dambe ayaa waxa ay noqotay dilka iyo dhaawaca loo geysanayo Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada u tahriibta dalka Sacuudiga. dadka wax ku noqda xuduudka Sacuudiga ayaa waxa u badan dhalinyaro kuwaas oo doonaya inay halkaasi ka soo shaqeystaan. dadka halkaasi wax ku soo noqday ayaa waxa kamid ah wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo ciise waxa uu xuduudka Sacuudiga uu la wadaago dalkan Yemen uu kala soo kulmay dhibaato aad u xanuun badan kadib markii la rasaasiyay isla marhaantana uu ku waayay mid kamid ah indhihiisa. kadibna waxa la keenay ciise magaalada Xarad oo ku taala meel u dhow xuduudka Sacuudiga uu la wadaago dalkan Yemen. kadibna waxa loo soo gudbiyay magaalada Sanca taasoo aanu jirin ilaa iyo haatan cid si dhab ah uga qabata xaaladiisa caafimaad. arintani ayaa waxaanu kala sheekaysanay qonsul xigeenka qonsuliyadda Cadana Mr. Xuseen Xaaji Axmed. meelaha ugu daran oo dadka ugu badan tacadiyada loogu geysto waa xadka. waxaa la sheegay inay ka jiraan xadka Sacuudiga iyo Yemen dhexdooda ilaa hadda inta la diiwaan geliyay ilaa 16 hangar oo midkiiba ay ku jiri karto ilaa 70 qof. waxaa kaloo la sheegaa in muddadii sanadka ahaa ee waddanka Yemen ay mudaaharaadyadii fowdada ka socdeen in tacadiyo loogu geystay xadka Sacuudiga oo kaliya 3,000 oo qof oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiya. marka way dhici kartaa inay in badan oo la ogeyn oo laakiin waqtigu soo saari doono inay jiraan. laakiin ilaa hadda inta la xusay tiradaasi ayay ku egyihiin. waxaa kaloo jira مثلا waxaa jira magaalo la yiraahdo Xarab waxay ku taallaa xadka Sacuudiga iyo Yemen dhanka Yementayna ku taallaa laamiga isku xidha Sacuudiga iyo Yemen ayaa mara 16 ka hangar waxay ku yaalaan magaalada Xarad kaliya. waxaa jira tulooyin ka baxsan oo xadka ka fog oo ayagana hangar noocaas oo kale ay ku yaalaan laakiin ilaa hadda aynan hay'adaha waxa ka shaqeeya ayna u suurtagelin inay soo tira koobaan. dhibaatooyinkan ay dhalinyarada kala kulmaan xuduudka Sacuudiga uu la wadaago dalkan Yemen ayaanu sahlanayn. isku soo xooriyo dhibaatooyinkan ayaanu ahayn mid aan la dhaleelsan karin oo dhalinyarada intooda badan ay ku mustaqbal seegaan. Maxamed Cali Juxa, telefishinka qaranka Soomaaliya, Sanca, Yemen.